lecture maanta waxaynu isdul taagi doonaa insha Allahu ta'ala calaamatu saaca casharatul kubra tobanka calaamadood ee ma garanaysaa saacadda ee qiyaamaha ka hor dhacaya baynu isdul taagi doonaa tobanka calaamadood ee Nabi Maxamed inoo sheegay baynu isdul taagi doonaa waxaynu isweydiin doonaa tobankii calaamadood ma dhaceen goormay dhacayaan su'aalahaas waa su'aalaha aynu isweydiinayno inta aynu darsayno tobanka calaamadood ka hor intaan lecture-ka maanta u gelin ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وبشرى للمسلمين lecture-ka maanta waxaynu isdul taagaynaa calaamadaha dhici doona qiyaamaha ka hor calaamadahaas culummadu waxay u qaybiyaan calaamadaha yaryar iyo calaamadaha waaweyn kuwa yaryar waxbaynu ka soo taataabannay waanan wadi doonaayoo kuwaasi kuwa aan koobi karno badanka maaha lecture kalena waan ku eegaynaa lecture-ka maanta calaamaatul kubraa casharatul kubraa oo ka mid ah calaamadda saacadda ayaynu isdul taagaynaa waxaynu isweydiinaynaa casharatul kubraa ma dhaceen mise weli dhammaantood waa sugaynaa mise qaar ka mida ayaa dhacay waxaynu ku horrayn doonaa xadiiskii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay calaamaatu kubra intaynu u gelin lecture-ka dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaanan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay baana mahad iskale ideelkeedba inoo suurtogeliyey mar kale barnaamijkan inaan idiin soo gudbiyo dhammaan rusushiisii iyo anbiyadiisiina naxariis iyo nabadgelyo ayaan ilaahay u weydiinaynaa sida caadada inoo ah gaar ahaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaa kadib ku soo dhowaada barnaamijkii aakhiru samaan talks lecture-ka maanta saan hore uga dhawaajiyey waxaynu isdul taagaynaa tobanka calaamadood ee saacadda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sida laga soo wariyey ma garanaysaa xudayfa asxaabtiisii oo meel ma garanaysaa fadhiya oo sheekaysanaya ayuu soo maray wuxuu ku yidhi maxaad ma garanaysaa ka sheekaysanayseen waxay yidhaahdeen markaa nebi maxamedow waxaanu ka sheekaysanaynay calaamaatu saaca nebigeennu markaa wuxuu ku yidhi saacaddu ma dhacayso ilaa horta aad aragtaan 10 calaamadood 10kii calaamadood buu nebi maxamed markaa tiriyey nebi maxamed markaa uma sheegin siday u kala horhoreynayaan ee u kala dhacdhacayaan keliya 10kii calaamadood unbuu inoo sheegay nebigeennu markaa wuxuu taabtay oo uu sheegay qiiq waa kow sidoo kale wuxuu taabtay dajaal waa 2 sidoo kale wuxuu taabtay daabatul ard ama bahalka dhulka ka soo bixi doona waa 3 sidoo kale wuxuu taabtay ma garanaysaa cadceeddu inay galbeedka ka soo bixi doonto waa 4 sidoo kale wuxuu taabtay nebi ciise calayhi salaatu wasalaam in uu soo noqon doono waa 5 sidoo kale wuxuu taabtay yaajuuj iyo maajuuj waa 6 baan haynaa kadib nebigeenna wuxuu sheegay khusuf dhulku in uu go'i doono oo beleydka dhulku in ay ishoos mari doonaan taana keeni doonto dhulgariiro badan iyo ma garanaysaa tsunamiba marka
beleydka dhulku ka samaysan yahay ilaahay ugu talagalay in ay ishoos mari doonaan oo khusuf oo dhulku go-aya buu sheegay. markaa wuxuu nebigeennu tilmaamay in bariga midi ka dhacayo, midna galbeedka ka dhacayo, midna jasiiradda carabta ka dhacayo. waa 3 6na horaan u sii haynay, waa 9 calaamadood. kadib nebigeennu wuxuu sheegay in ma garanaysaa dab ka dhici doona yamanta, dadkaas dhulkaa joogana uu u soo kaxayn doono ma garanaysaa the place of assembly, ma garanaysaa meeshii ma garanaysaa maxsharkoogii uu keeni doono xisaabta. 10kaa calaamadood buu nebi maxamed sheegay. 10kii calaamadood baynu dul istaagaynaa markaa mid mid. guud ahaan mid kaste waxaan jecelnahay inaynu lecture ka samayno, qaarkood lectureynu ka diyaarinay. markaa inaad sii fahamta aad u baahan tahay, markaa lecturadaasaa tegi insha allahu tacaala. kuwa lecturadoodu ay dhiban yihiinna waa kuwa aanu ka shaqaynayno oo hadduu eebba nagu simo inaynu idiin soo gudbin doonne saa ula socda. intaa kadib nebigeennu calaamadihii markaa uu sheegay ma dhaceen mise weli 10kii waa la sugayaa. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa kariimka waxayna leeyahay isagoo aakhiru zamanka tilmaamaya iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar. saacaddii waa soo dhowaato dayaxii ma garanaysaa ayaa dildilaacay. dhacdada waxaa la tilmaamayaa in wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dhacday. hadday haddaba wakhtigii nebiga dhacday oo dayaxii dildilaacay, ilaahay wuxuu isticmaalay iqtarabat isaacatu, saacaddii baa soo dhowaatay. waa wakhtigii nebi maxamed oo nool buu ilaahay leeyahay saacaddii way soo dhowaatay. markaa ejkii u dambeeyey baa ummadda nebi maxamed ku jirtaa. aakhiru zamaankii baan ku jirnaa from that day, maalintaa laga soo bilaabo. markaa bal 10kii calaamadood uu nebigeennu sheegay baynu qaar ka mida markaynu isdul taagno. horta dajaal waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisiiba in tiraba dhowr jeer ay shakhsiyaad uga shikiyeen. maalmihii ugu dambeeyey noloshiisa, sanadihii ugu dambeeyey ee madiine uu ku noolaa, dad baa uga shikiyeen oo joojiyeen oo kuwa shangareeyeen ay wax weydiiyeen. su-aasha markaa taallaa waxa weeye, maxaa ku dhaliyey nebi maxamed iyo asxaabtiisii, gaar ahaan nebi maxamed shaksi waagaa markaa madiine joogay, inay joojiyaan oy dajaal u maleeyaan? jawaabtaan kala soo baxnaa waxay tahay in dajaal nebi maxamed oo nool markaa la soo daayey. nebi maxamedna markaa soo dayntaa la soo daayey ay gelisay shakigaasina uu keenay in uu markaa asxaabtii iyo isaguba dad ka mida inay uga shikiyeen in imalaha uu dajaal yahay. dajaal markaa waagii nebi maxamed baa la soo daayey, laakiin ma soo bixin. theoryga dajaal waan darsi doonnaa. 2 marxaladood buu marka koowaad aan u kala saaraynaa. midi waa soo dayntii dajaal, midna waa soo bixitaankiisii. waxaan aaminsannahay dajaal wakhtigii nebi maxamed in la soo daayey. okay, soo bixiddiisu markaa goormay dhacaysaa? soo bixiddiisa nebi maxamed wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 cisho inuu caalamka joogayo. maalintiisa koowaad inay tahay sida sanadkoo kale, maalintiisa labaad inay tahay sida bishoo kale, maalintiisa saddexaad inay tahay sida toddobaadkoo kale. wasaa'iru ayaamihi ka ayaamikum, maalmihiisa kaloo dhanna in ay yihiin kuweennoo kale. halkaasi waxaa ku cad in dimension kale oo inagu aan ku jirnee 24 saacadooda ee material worldkaan ku jirno inuuna dajaal ku jirayn 3 cishee ugu horreysa. that means 3 cishee ugu horreysa arki mayna dajaal. laakiin dajaal waxaan ku garan karnaa oon ku soo saari karnaa 3 cisho raadkiisa, raadka uu caalamka ku leeyahay, footprintkiisa baynu ku soo saari karnaa. laakiin bacda 3 marxaladood u dhammaadaan
unbuu dajaal soo baxayaa. maalintiisu noqoto kuweenoo kale maalintaasuu soo baxayaa. okay, dajaal culamada qaarkood markaa waxay ka dhawaajiyeen theoryga waan idiin soo bandhigi doonaa, dhowr theory oo calculation wataan idiin soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala, in maalintii koowaad uu dajaal dhammaystay. alyowmul kasanna dajaal waa u dhammaatay. alyowmu kalshahrina dajaal waa ku jiraa oo waa gabagabo. waxaa u dhiman markaa inay tahay alyowm maalintii toddobaadkii inay u dhiman tahay. maalinta toddobaadkii maalinta u dhammaatana waxaan ogsoonnahay dajaal markaa inaynu arki doonno. kaasi waa kaa. yaajuuj iyo maajuuj, nebi maxamed wuxuu ku daray inay ka mid yihiin casharatu lkubra. yaajuuj iyo maajuuj markaa ma soo baxeen? waxaan ogsoonnahay yaajuuj iyo maajuuj soo bixitaankooga baan ka wadaa, soo bixidooda ama soo bixitaankooga waxaa sheegaya qur-aanka kariimkaa sheegaya. qur-aanku markaa si cad wuxuu leeyahay acuudu billahi min ashaydaani irajiim bismi illaahi araxmaani iraxiim waxaaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha innahum laa yarjicuun. waxaa ka xaaraana magaaladii aan halaagnay in ayagu ku soo noqdaan. xataa idaa futixat yaajuuj wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun. ilaa iyo baankaas waxay magaalada inay ku soo noqdaan ay xaaraan ka ahaanaysaa ilaa iyo maalinta ay soo bixi doonaan yaajuuj iyo maajuuj, markaas oy buur walba ka soo degayaan. halkaasi markaa waxay noogu cad magaaladii in culummada qaarkood soo heleen oo ay fasireen ee magaaladii tahay jerusalem, dadkiina yihiin dadka yuhuudda. maalintii yuhuudda lagu soo celiyey ay ku soo noqdeen magaaladii ilaahay ka mamnuucay ee waxaaraamun ma garanaysaa calayhim ilaahay uu yidhi inay magaaladaa ku soo noqdaan. maalintay ku soo noqdeen waxay caddayn indhaha aan lasi qaban karin u tahay yaajuuj iyo maajuuj markaa inay soo baxeen oo welibana min kulli xadabin yansiluun, buur walba ka soo degeenay adduunkao dhanba qabsadeen oo kuwii meel walba gumaysanayay. kuwii markaa yuhuudda keenay waa yaajuuj iyo maajuuj ah. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isaga oo xadiis ku sheegaya soo bixitaankooga oo ma garanaysaayey aad u walwalsan buu ma garanaysaayey soo baxay. markaasuu wuxuu yidhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab. markaas ma garanaysaay hoog baa carabta u haaday. carabta welibana si gaara u soo qaatay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. umuurta sharkeed soo dhowaatay darteed maalintaa farta iyo suulku nebi maxamed isku qabto wuxuu yidhi deyrkii yaajuuj iyo maajuuj in intaa leeg baa la furay. in intaa leeg ayaa la furay buu yidhi. in intaa leeg baa la furay. marka waagaa nebi maxamed wuxuu inoo sheegay in deyrkii in intaa leeg la furay haye, laakiin yaajuuj iyo maajuuj markaa buur walba kamay soo degi karin oo dhulka may qabsanin, laakiin maalinkaabay soo baxeen. markaa nebi maxamed oo jiray yaajuuj iyo maajuujna soo baxeen, caalamkay ku fidayeen, dadkiibay dhex galeen, waddamada yurubtay dhex galeen, caalamkao dhan bay dhex galeen. way ma garanaysaa way ka dhex guursadeen, way ma garanaysaa dhadhantigoogii bay ku dhex qarsadeen. kadib markay awood yeesheen ay dhulkiina wada qabsadeen bay yuhuuddii meesha keeneen oo calaamadii kale weyneyd aan ku garanaynay. markaa yaajuuj iyo maajuuj waa soo baxeen. calaamadaasina waa calaamad dhacday. yaajuuj iyo maajuuj riliisna waa lagu sameeyey, wayna joogaan. dajaal isaga riliis baa lagu sameeyey, caalam kale waa inala joogaa, dimension kaleu ku jiraa. waxaan ku garan karnaa dajaalna raadkiisa 3diisii cishe u horreysay qaar ka miduu ku jiraa, raadkiisa aynu garanaynaa. laakiin maalinta 3daa cishe uu dhammaysto waan arki doonaa. halkaa labaynu ku haynaa. smoke buu nebigeennu ka hadlay, dukhaanka waxaa culamo badan leeyihiin wakhtigii nebi maxamed ba wuu dhacay. haddii xitaa aan taa qaadanno waa calaamad dhacday buu noqonayaa. haddii kalena wuxuu soo gelayaa qiiqan maantaba caalamka jira ee ma garanaysaa climate change-ku keenay
oo sii xumaan doona oo goortuu sii xumaan doonana waxaa loo badinayaa dagaalka saddexaad ee caalamku maalinta uu dhaco qiiqii markaa ilaahay sheegayey ee samada qarinayay ee dadka qarinayay maalintaasaa uu soo bixi doonaa marka waa calaamad iyaduna dhicitaankeegii ay afka aan ku hayno ama calaamad hadday dhacdayna sida culammada qaarkood sheegayaan dee hore uba u dhacdayba markaa iyaduna inagama dheera ama way dhacday 3 baan halkaa markaa ku haynaa waxaan markaa u imanaynaa cadceeddoo ka soo baxaysa galbeedka culimmada qaarkood axaadiista nebi maxamed inoo sheegay iyo qur-aanka laftigiisuba qaarkood badankoogu waa symbolic iyo tusaale metaphoric matalaad waxay mar walba u baahan yihiin in aynu sharaxno sharaxaaddaa in loo baahan yahay waxay noo caddaynaya xadiis baa waxaa jira nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam asxaabtii baa in ka mid ah waxay weydiisay nebi maxamedow maskiidkii ugu horreeyey ee caalamka laga dhiso maskiidkee buu ahaa nebigeennu wuxuu yidhi wuxuu ahaa masjidulxaraam oo beytulxaraam ayuu ahaayo nebi ibraahim baa calayhi salaatu wassalaam dhisay iyo ismaaciil waxaa la weydiiyey maskiidkii labaadna keebuu ahaa nebi maxamed wuxuu yidhi maskiidkii labaad wuxuu ahaa masjidul aqsa oo waxaa dhisay nebi saleebaan haddana waxaa la weydiiyey markaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam inteebaa u dhexaysay labada maskiid nebigeennu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi waxaa u dhexaysay 40 sano haddaba dadka jecel mar walba in literal meaningka la qaato oo siday wax u qoran yihiin xaraf xaraf un loo macneeyo dee xadiiskaasi waxa weeye buuruhu la korayaa ma macnayn karaan waayo taariikhda caalamka iyo qof kastaa waa iska ogyahay waa garan karaa nebi ibraahim iyo nebi saleebaan inayna 40 sano u dhaxayn caqliga ma gali karto marka muxuu u jeeday nebi maxamed 40 sano waay uu u lahaa wuxuu lahaa waa symbolic waa tusaale 40 sano macnaha say u badan tahay muddo badan unbaa u dhaxaysay buu ka waday nebi maxamed marka axaadiis badan oo sidaasoo kale ah oo in la macneeyo u baahan oo la fasiro oo siday u qoran yihiin haddaad u qaadato oo xaraf xaraf unaad u macnaysato aan macno badan kuu samaynayn oo waxyaalo badanna aan ku tusi karin oo ma garanaysaa dadkana aad ku hadlayn karto runtii baa jirta markaa nebigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cadceeddu galbeedka ka soo baxaysaa culamada qaarkood baa markaa waxay ku doodaysaa cadceeddii galbeedka ka soo baxaysay already way soo baxday oo see u soo baxday anumaba arag be adumaad aragtay way soo baxday oo waxay leeyihiin cadceedda nebi maxamed jeeday waxay ahayd ilbaxnimada bugta ah ee reer galbeedka ee ka timiday galbeedka waxay ahayd xadaaradan iyo ma garanaysaayey nimankan maanta ina haystay ina wareerinaya ee yaajuuj oo maajuuj soo bixitaankooga ilbaxnimada reer galbeedka ay ka keeneen xadaaradaas ayaa ah cadceeddii nebi maxamed sheegayay calayhi salaatu wasalaam cadceeddaas oo ay rabaan iftiinkii ilaahay inay ku baabiiyaan iyagoo maanta inaga dhaadhicinaya oynu ognahay wax wal oo caalamkan soo maray iyo diin wal oo caalamkan timiday in ay ka fiican tahay xadaaradda iyo ma garanaysaa teknolojiyadda iyo waxa iyagu inoo keeneen uun taasoo in badanoo innaga inaga mid aamintay oo iyaga una ay rumaystaan waxay inoo soo qoraan miiska hoosteeda gal haddii kale xanuun baa kugu dhacaya adoo ordayaad gelaysaa waxba isma weydiinaysa maanta saasaynu u rumaysannay aayadihii qur-aanka kariimkii inoo sheegayay waxyaala badan oo diintu inoo sheegtayna waxaa sameeyayn la yidhina cid samaynaysa male marka xadaaradda nimankaa ay keeneen baa culammadii leeyihiin waxa weeye waa cadceeddii soo baxday waxay daliil uga dhiganayaan haddii xadiiskaa sidiisa aannu qaadanna bay leeyihiin wuxuu ka hor imanayaa qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala suuratu arruum wuxuu ku leeyahay
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا بإلهي ليه فطرة الله التي فطر الناس عليها انت أمركم إلهي الشيء وحليه إلهي سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله خلقك إلهي لما بدلوا اسبدل كمي معدو إلهي بقرآن تقول خلقك إلهي اسبدل كما يمادو ذلك الدين القيم دين تسحذي توصني واتا ولكن أكثر الناس لكن دادك بدن كوغو لا يعلمون أرنتها وربا كما هيان إني خلقك إلهي اسبدلو ونبسو دولا كيالو بيو هايستان مركا iyagoo aayaddaa deliishanaya waxay leeyihiin cadceeddu kama soo bixi karto galbeedka waayo hadday galbeedka ka soo baxdo waxaa dhacaya tabdiilu khalqullah khalqigii ilaahay markaa inuu isbedelo for that reason waxay leeyihiin cadceeddu kama soo bixayso galbeedka cadceedda ka soo baxaysa waa tan reer galbeedka waan ogahayo dhowr xadiis oo kale baa jiro aad la soo ordi doonto markaan intaa idhaahdood odhan doonto oo toobadu lama aqbalayo baa layidhi xadiisyadaasna fasiraadoodii waan haynaa barnaamijyada xiga waan idinku fasilaynaa cidda toobada laga aqbalayn ee xadiiskaasi uu ku saabsan yahay cidday tahay aynu ka soconno markaa waxaynu ogsoonnahay markaa cadceeddiina inay galbeedka ka soo baxday halkaasi waxaynu ku haynaa 4 calaamadood oo 3 ka midi ay dhaceen labana ay dhammaysmeenba ta cadceedda soo baxday waaba dhammaystirantay wax loogu noqdo ma leh yaajuuj iyo maajuuj wax loogu noqdo ma leh dajaal ma garanaysaa waa la soo daayey soo bixitaankiisii unbaa inoo hadhan qiiqiina ma garanaysaa 50-50 baynu taagannahay dagaal maanta in uu dhaco oo nuclear laysku adeegsado culimo badan oo ma garanaysaa kuwa secularka ah ee physics-ka bartayba waxay xitaa ka sheekeynayaan iyo culimada ma garanaysaa siyaasadda darsiba in aynu khatar ugu jirno hadda in aynu dagaalkii saddexaad ee caalamka aynu afka la galno arrintaasi hadday dhacdana nuclear in laysku adeegsaday keenaysaa dagaalka saddexaad ee caalamka barnaamij gaar aynu kaga warramaynaa isagana hadduu eeba idhaahdo nuclearka intaa kadib waxaynu u gelaynaa markaa aynu soo qaadaynaa bal calaamadda shanaad beast daabatul ard culamo badan ba waxaa ku doodaysaa daabatul ard in ay tahay ma garanaysaa ay soo baxday ay yihiinna anteenooyinka telefoonka iyo telefoonada maanta aynu ku wada hadalno waayo aayad qur-aana ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu u soo saari doonaa daabad baanu soo saaraynaa oo markaa la hadasha ama dhibaataysa baanu soo saaraynaa markaa tii daabaddii la hadlaysay bay leeyihiin ma garanaysaa ee dadku ku wada hadlayey ma garanaysaa dhibaatadana lahayd waa teknolojiyadan maanta aynu isticmaalno ee telefoonada ah sharaxaad badan iyo qaabkii ma garanaysaa ay ku timiday waxaynu ku bixinaynaa lecture gaara oynu isdul taagi doonno insha allahu tacaala daabatul ard inta ka horeysa waxaan ogsoonaataa in aan qabno fikirka daabatul ard in ay tahay teknolojiyadda gaar ahaan ma garanaysaa telefoonada maanta aynu isticmaalno markaan intaa kasoo gudubno markaa halkaa 5 baynu ku haynaa haddii daabatul ard aad u baahan tahay markaa aanad ku qanacsanayn waxaad iska sugi kartaa xayawaankii culammadii islaamkii hore sharaxeen ee calaamadaha badan ay u sameeyeen lugaha geela qoorta goronyada ma garanaysaa madaxa ma garanaysaa libaaxa I think dhagaha ma garanaysaa maroodiga indhaha ma garanaysaa doofaarka waxyaalo badan oo noocaas oo xayawaanadii ay isku gegeeyeen baa jira oo ay ku tilmaameen daabatul ard haddii aad u baahan tahay xayawaanka noocaas inuu soo baxayaad iska aaminsanaan kartaa laakiinse daabatul ard waa macnaha iminka aan hayno wallahu yaclam ee saxda ah waa taas markii aayaddaasna aan ku noqonno ee qur-aanka kariimka lecture gaaraanan saan sheegay aynu kaga hadlaynaa waxaan ku soo noqonaynaa markaa maadaamaan halkaa iminka hayno 5 calaamadood
waxaan ku soo noqonaynaa markaa dhulkii go-ayay. dhulka go-ayay markaas 3 bay ahaayeen. waxaan ogsoonnahay saddexdaas in tii iiska ka dhacaysay inay already dhacday baan qabnaa. dhulgariiro badan dhulka waa ka dhaceen laakiin lama khuseeyaan. waxaa aada noo khuseeya tsunamidii 2004kii ka dhacday ma garanaysayay iiska in ay keentay tsunamidaasi ka dhalatay badda gunteeda markii bladeka dhulku ka samaysan yahay ay khusuf ku dhacay land slide ay isdhaafeen baa dhulgariir weyna uu dhacay. dhulgariirka oo nambarkiisa 9 lagu tilmaamay uu iiskaa ka dhacay in ay ahayd tii nebi maxamed sheegay. ilaa 100,000 oo qof baana dhacdadaasi wax ku noqday oo ku naf waayey. dhacdadaasi waxay ahayd khusufkii nebi maxamed uu iiska inay ka dhacayso uu sheegay. waxayna ku soo beegantay wakhtiyo dajaal soo baxay, yajuuj oo maajuuj soo baxeen, daabatul ardi soo baxday, cadceeddii galbeedka ka soo baxday bay taana dhacday. tii laakiin waska ka dhacaysay weli ma dhicin, laakiin maalinkii uu ilaahay ma garanaysaa ugu talagalay inay dhacdo waxaad ka fiirsaa in uu ka dhacdo maraykanka iyo caribbeanka ilaa mexico ilaa canada eriyadaas inuu ay ka dhacdo ka filo. doorkan u malayn mayno, qasabna maaha inay mar kale badda hoosteeda ka dhacdo. waxaa suurtagala in ay biriga dushiisa ka dhacdo. ta saddexaad ee nebigeennu markaas sheegay ee uu yidhi jasiiradda carabtay ka dhacaysaa, xadiis kale waxaynu ku haynaa wakhtigay dhacayso. wakhtigaasi waxa weeye wakhtiga imaam mahdi soo baxo. ciidan baa shaam looga soo diri doonaa si ay imaam mahdi iyo ciidanka markaa aqbalay iyo dadka beeca siiyey si ay u tirtiraan oo u hor istaagaan. laakiin ciidankaa la soo diray nebigeenna wuxuu inoo sheegay inuu dhulku liqi doono khusuf. taasi markaa isla khusufkaa halkaa inalagu sheegay waa isla khusufka jasiiradda carabtu ka dhacayaa layidhi kaasuu noqon doonaa isaguna. kaasi markaa kaa saddexaad wakhtiguu dhacayo waan garanaynaa, weli ma dhicin. wakhtigan imaam mahdi soo baxo buu caddayn u noqonayaa. markaa soo bixitaanka imaam mahdi isaga laftiisu wuxuu wataa waa calaamad ka mida buu noqonayaa calaamadaha casharatul kubraa maadaamoo khusufkaasi ku soo beegmayo. haddana waxa markaa jirta dabkii yamanta ee dadka maxsharkoogii keenayey. taasi weli ma dhicin laakiinse waa dhici doontaa iyaduna. ugu dambaynta nebi ciise soo noqodkiisu iyaduna waa casharatul kubraa. nebi ciise markaa wuxuu soo noqon doonaa markuu dajaal soo baxo. markaa dajaal oo hore u soo baxay markaynu aragno kadib waxaan sugnaaba waxa weeye waa soo bixitaankii nebi ciise. soo bixitaanka nebi ciise waxaa sidoo kale isla markaa soo baxaya ma garanaysaa imaam mahdi oo soo baxay oo muddo badan aan caalamka joogin baa nebi ciisena soo baxayaa. khusufkiina waa dhacayaa. markaa isku wada geeyo 4 calaamadood oo khusufkii nebi ciise soo noqodkiisii imaam mahdi iyo dajaal oo soo baxay oo dhammaystay haddadeed wejigiisii koowaad oon arkayno. 4taasi waa isku soo wada beegmayaan. 10kii calaamadood ee casharatul kubraa nebigeennu ma garanaysaa inooga sheekeeyey, culimmaduna casharatul kubraa ku tilmaameen waa 10kaas. haddaba barnaamij kale ayaynu insha allahu tacaala isku dul taagi doonaa qodob yajuuj oo maajuuj saan uga sheekaynay
baynu dajaal uga sheekayn doonaa, baynu dagaalka saddexaad iyo ismooga uga sheekayn doonaa, qiiqa daabatul ardi mid gaaraanu ku soo qaadanaynaa, dhulgariirada iyo khusufka dhacay ee iiska ka dhacay documentaries iyo xaqiiqooyin baynu ku soo qaadanaynaa, aanu ku saboorgaraynayno in uu ahaa arrintii nebi maxamed inoo sheegay inay dhacdadii 2004ku ay ahayd tii nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale waynu ka sheekayn doonaa soo noqodka nebi ciise, waan ka sheekayn doonaa soo bixitaanka imaam mahdi, waxyaalaha dhacaya waqtiyadoodana waan ka sheekayn doonaa. inta aynu insha allahu barnaamijyadan ku guda jirno kolba barnaamij baynu u gali doonaa, laakiinse waxaad ogsoonaataa casharatul kubraa calaamadaha ahayd ma garanaysaay aakhiru zamanka iyo calaamadaha saacadda 4 ka midi already bilaa hadal way dhaceen. 4tan programmada kolba aan ka samaynayno yaajuuj iyo maajuuj iyo ma garanaysaay cadceedan galbeedka ka soo baxday, calaamadahaasi iyo daabatul ard, kuwaasi waa kuwo already dhacay, iyo calaamadda iiska dhulgariirka ka dhacay oo kuwo already dhacay. waynu isfahansiinaynaa, programmaynu gaaraan dul istaagaynaa, waan darsaynaa, bal jaranjartaan saarannahay si aad noola soo korto insha allahu tacaala. inta kalena waqtiyada ay soo baxayaan waynu cabiraynaa, waan ka sheekayn doonaa, qur-aanka iyo axaadiistaba waynu soo adeegsan doonaa. barnaamijkan barnaamij la mid ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa fii amaan illah.